بسم الله الرحمن الرحيم. 28 bisha December 2025 ururada siyaasadeed ee Soomaaliyeed waxay si adag u cambaareynayaan kuna gacan sayrayaan go'aankii uu qaatay nidaamka Israa'iil kaasoo si adag ugu xadgudbay madax bannaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. go'aankii la shaaciyay December 26 2025 oo uu qaatay nidaamka Israa'iil wuxuu u taagan yahay weerar qaawan oo lagu soo qaaday Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaana uu khatar ku yahay xasiloonida iyo nabadda geeska Afrika. sidaa darteed waxaa waajib ku ah ummadda Soomaaliyeed inay si wadajir leh uga hortagaan tallaabo kasta oo wax u dhimaysa madax bannaanida dhuleed ee dalkeeda. waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed inay midoobaan khilaafka dhexdooda yaalana meel iska dhigaan, inay si wadajir ah u difaacaan jiritaanka qarannimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. ururada siyaasadeed waxa ay ka dalbanayaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka banaanbaxyo ay bulshadu ku muujinayaan mowqifkooda ku aadan diidmada aqoonsi ku sheega nidaamka Israa'iil. banaanbaxyadaas oo ay horkacayaan madaxda dowladda dhexe, dowlad goboleedyada, siyaasiyiinta, culimaa u diinka iyo waxgaradka ummadda Soomaaliyeed. ururada siyaasaddu waxa ay u mahad celinayaan dhammaan wadamada, hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa gobolka ee garab istaaga u muujiyay wadajirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha caalamiga ah ee ay ka mid tahay qaramada midoobay, midowga Yurub, midowga Afrika, IGAD, bulshada bariga Afrika, ururka iskaashiga Islaamka, jaamacadda Carabta inay qaataan waajibaadkooda ku aadan ilaalinta madax bannaanida, midnimada, wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. wabillahi tawfiiq.